Canab Cabdi Ilaaye waa hooyo dhiban oo ku nool magaalada Gabiley isla markaasina wiilkeedu ka tahriibay kaasi oo ifka kalidii ka eeganayay waqti xaadirkana uu Liibiya ku haysto Magafe waxaana Magafaasi u haysta lacag dhan $12,000 waxaana lacagtaasi laga bixiyay $3,000 oo ay iska soo ururiyeen bulshada reer Gabiley waqti xaadirkana waxa uu harsan $8,000 oo loo haysto wiilkaasi ay dhashay Canab Cabdi Ilaaye waxayna sheegtay hooyadani ay Magafu soo garaaca wiilkeedu oo la shirdilayo taasina ay ka damqato ummadda islaamkana meel kasto ay joogaan waxay ugu baaqday inay si naxariis leh uga soo caawiyaan wiilkeeda uu haysto Magafe hooyadu halkaas ka hadashay ayaa fariintan dirtay hooyo Canab Cabdi Ilaaye oo iska dhibaataysan inankay way iga tahriibay dibadda markuu tahriibayna $12,000 baa soo dir $12,000 saddex baan diray inta hadhayna dema awoodi karo waxa la xanu hayaa ma jirto oo ku bixiyo marka walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan waxay iga soo caawin karaan iga soo caawiyaan oo iga soo bixiyaan yaan doonaya waxaan ugu baaqayaa inta baaqiga iga soo bixiyaan $3,000 baan bixiyay $8,000 baa igu hadhay marka walaalahayga waxaan ka codsanayaa inay iga soo bixiyaan inta iga soo caawiyaan $8,000 mar walba wala garaacayo Magafiiba garaacaya lacag keen bay leeyihiin marka ana waxa la xanu hayaa ma jirto shaqa xitaa malihi waxaan u iibiyo ma hayo wadar Ilaahay mooyaan laakiinse wax Ilaahay og yahay waxaan u hayaa ma jirto sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasna hadalka si kala dambeeyay dadka la jaara hooyada dhiban oo sheegay in $3,000 ee la bixiyay looga soo ururiyay suuqa una baahan tahay waqti xaadirkan in lacagta harsan $8,000 laga bixiyo wiilkeeda ku dhibaataysan wadanka Liibiya hooyada Soomaaliyeed ee dhibaataysan Canab Cabdi Ilaaye oo reer Gabiley oo waxdada inanka indha garanaysay oo qof labaad uu helin inankiina ka tahriibay cid la ku hadhay dhowr cisho kooma ku jirtay meel marta garan weyday Liibiya ka soo hadashay oo la garaaciyo halkan u jaban yahay halkan ay xanuunayso u leeyahay Ilaahay waxaan u baryeynaa inta halkan joogta inta xagga joogtaba dar Ilaahay inay ku soo caawiyaan oo ay u gargaaraan oo ay u naxaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta goor walba way warwarsan tahay way cabanaysaa way ooyaysaa inagana inagu ooyaysaa u soo gargaar dar Ilaahay sida ugu dhaqsaha badan la ninkii waxeelaya wax la baxaya sadaqadaha alla soo baxo soo siiyo walaashiisa Canab Cabdi dhibaataysan Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu u gargaaro inankeedana u nabadgeliyo indha kala male kaas ay leedahay aaba wax ka bixiyana malaha iyaduna waxba uma hayso wax shaqo ma haysato aanu gargaarno inta waanu u baahaynay saddexda waanu u baahaynay suuqa loo maray umada waraaqa loo dhiibay saddexdaas dirqi lagu helay jaar baanu lanahay way dhibaataysan tahay ilmaheegii ba ka tahriibay waxay gacanta ku haysaana ma jirto mar walba la soo kara ilmaheegii la garaacay la tusaya waanu u baahaynay waxna waanu soo weyn ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa hooyada dhibaataysan ee taagta iyo tamarta yar leh inay ummadda Soomaaliyeed soo caawiyaan inankeyga markasta sawirka loo soo dhigay Facebook isagoo la garaacayo waxna ma hayso wax adduun ay leedahayna ma jirto way baahan tahay waa dan yar cid u maqani ma jirto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qurba joog iyo dal joog waxaan ka codsanaynaa inay hooyada dhibaataysan inta ku hadhay $3,000 bay dirtay $8,000 baa lagu leeyahay